السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كيلو هذا جحا يا حكمتي سي wax kamida waxa uu ahaa juxe in aad iyo aad u xigmada badan dadkana ka qosliya oo aragti dheer leh. xigmadiisii wax kamid ah ayaynu ka soo qaadanaynaa si aynu u kororsanno way aragnimo aqoon. maalin ayaa u fuulay mimbarka masaajidka markaasuu ku yiri dadka waxaan idin sheegayaa ma garanaysaan markaasay ku dhaheen maya markaasuu yiri maxaa idin ka sheegay haddii garanaynba. maalintii labaad ayaa u fuulay mimbarka markaasuu ku yiri maanta waxaan idin sheegayaa ma garanaysaan markaasay ku dhaheen haa markaasuu ku yiri maxaa idin ka sheegay hadda garanaysaan. maalintii saddexaad ayay ku heshiiyeen dadkii masaajidka joogay inay qaarna dhahaan haa qaarna dhahaan maya. isla sidii uu fuulay mimbarkii dabadna wuxuu yiri maanta waxaan idin sheegayaa ma garanaysaan waxay dhaheen haa qaarna waxay dhaheen maya. dabadna wuxuu yiri kiina garanaya kiina aan garanayn ha u sheego. maalin ayaa nin isiri juxayas markaasuu ku yiri war maanta juxe adiga kuma garanay dameerkaaga ayaan gartay. wuxuu ugu jawaabay waa caadi iyaga dameeru iskarta. inaad markiiba jawaabta celisay waa wax alla bixiyo waana hibo waxaana la dhahaa jawaabu surca jawaabta degdega. inta badanna waxa lagu arkaa dadka abwaanada ama hal abuurka leh. nin ayaa juxe maalin weydiiyay juxow xagee ayaa haboon in laga maro meydka marka la sido markaasuu ugu jawaabay maaha muhiimadu in dhinac laga maree waa inaanad ka naxashka saaran uun aanad noqon dhinaca doontid maro. nin baa ku yidhi maalin juxe juxow dameerkaagii wuu lumay oo waa la waayay. juxaa intuu farxay oo sujuuday yidhi ilaahay baa iga badbaadiyey mar buu dameerkaas ila lumi lahaa. maalin ayaa juxa xaafadiisa qayra ka yeedhay. nin baa weydiiyey ku yidhi maxaa juxow ka dhacay xaafadaada markaasuu ugu jawaabay khamiiskaygii ayaa ka soo dhacay xadhiga anna waxaan ilaahay ugu mahad celiyey inaanan khamiiskaa xidhnayn oo aanan la soo dhicin. maalin ayaa wax uu watay 10 dameeraa mid ayaa uu saarnaa marka uu tiriyay 9 buu ka tirinayay oo ka uu saaran yahay ayaa ka tegayay. markii dambe intuu iskaga digay buu yiri inta dameer khasaari lahaa anigoo la waayay ii dhaanta. shakadana waxa ay eg tahay kuwii laga daba sameeyay ee koobiga ahaa. juxa ayaa soo gatay maalin dameer oo ka soo kaxaystay seelada dabadna 2 nin baa arkay oo tuuga waxay is yiraahdaan ka qaada. nin baa xadhigii qoorta sudhay nina dameerkii buu la cararay. mar dambe ayaa uu soo jeestay juxa waxa uu arkay wixii inaanu dameer ba ahayn ee uu qof yahay. waxa uu weydiiyay maxaa ka dhigay qofka sawdigii ahaa dameerka. waxa uu ugu jawaabay mudane waxaan caayay hooyaday dabadna waa taa qofka la iga dhigay ee mudane i xoree sidaan ugu noqdo dameerkaygii waa uu xoreeyay. isla maalintii labaad ayaa ku arkay seylada waxa uu weydiiyay maantana ma hooyada cayday wuxuu ku yiri mudane haa maantana hooyana caayay xoree laakiin waxa uu ugu jawaabay maanta kuma xoreynayo. maalin ayaa waxa uu alaab u dhiibtay nin sigaar cabaya oo afku dablaa waxaana uu is yiri calaamadiisu ha ku ahaato inuu sigaar cabayo. ninkii baa kacay ninkii waana uu waayay dabadna mar dambe uu arkay magaaladii oo wada sigaar cabaysa. sheekooyinka juxe ee xigmadaha leh aad bay u fara badan yihiin mana soo koobi karayno. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.